ninkaasi hadalkiisa waa iska hadlay hadalkiisana wax ka jira ma jiraan sababta wuxuuna kala aqoonba doorasho toosan iyo doorasho dadban kale ma yaqaan maxkamadda sare ee dalkuna waxay diyaar u tahay inay ka gar noqdo cabasho kasta oo ka dhalata go'aan maamul oo ay gaadheen guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan doorashada maxkamadda sare loogu talagalay waa doorashada toosan waaye waa sax markii hore waxay ahayd inay jirto maxkamaddii dastuuriga ahayd maxkamaddii dastuuriga haddaysan jirin shaqadii ay qaba lahayd waxaa qabanaya maxkamadda sare waa runtiisa laakiin doorashada uu ka hadlayo oo maxkamadda sare ay ka shaqaynayso waa doorashada tooska ah doorashadan dadban waa heshiis siyaasadeed dadka muwaadiniinta ee laga yaabo inay saamayso go'aamada ay gaadhayaan guddiyadaasina aanay u arag inuu waajib sharci yahay heshiisyadii ay gaadheen odayaasha ugu sarreeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu laakiin uu yahay waxa asalka ee loo noqonaya inuu yahay dastuurka dalka iyo qawaaniinta dalka iyo xaqa aasaasiga ee aanu qofna hor istaagi karin wixii doorashadan oo dadban oo ku timid heshiis siyaasadeed wixii khilaafaada oo ka yimaada waxaa lagu xalinaa heshiis siyaasadeed ee qaanuun laguma xukminayo intaas waxaan u malaynaa inuu gartaan u malaya waa haddoo wax akhristay haddoona wax akhrisanna asay u taallaa hadalkaana asagoo ma dhihin waa mid loo soo dhiibay hadalkaana wuxuu ka mid yahay oo kasoo yeray carqaladeyn iyo khilaafaad ayuu rabaa inuu dabada u geliyo marka ay bilaabmaan doorashooyinku go'aan kastoo ay soo saaraan guddiyadu waxa weeye waa go'aano maamul go'aan kasta oo maamulna waxaa cabasho looga qaadan karaa maxkamadda sare ee dalka ninka odaga ahee meesha fadhiisiyey ayaa dad raba inuu diro hadday wax soo khilaafaan inay soo diidaan inuu dhaho asaga ha loo geeyo marka hay-adaha dowladda ee sharci dejinta iyo fulinta iyo garsoorkuna waddankan kalama baxsana golihii shacbiga ee soomaaliya waa la ogyahay villa soomaaliya jeebka ku ridatay markaasaa waxay tidhahdaa gacanta bidix u taaga waxay tidhahdaa haddana isla kuwile gacanta midig u taaga garsoorkuna waa saasoo kaleeto asaa qoray ninkiisan qorayaa qoray wuxuu rabaa inuu dhaho saas iyagu xukun marka nimaa usoo sheego yidhi saas sii sheeg si birito sida asaga uu rabo xukun la dhaho laakiin qofkii yeelaya ma jiro baashana raalli ha ahaado waxaad xukumaysana ma jiraan baashi wax aan kaa dhegeysanayna ma jiraan haddii lafaagu aad ku nabadgelayso inuu meeshaada naga joognayo qof wax ku weydiiyaana ma jira adiga